dibadbaxaad u ballaaran ayaa maanta ka dhacay gudaha magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn. dibadbaxan ayaa lagu taageerayay maamulka Khaatume State of Somalia waxaa sidoo kale lagaga soo horjeeday faragelin la sheegay in xubnaha golaha baarlamaanka ee maamulka Khaatume ka soo jeeda ay ku hayaan xubno kale oo ka mid ah Soomaalida. waxaana banaanbaxan oo maanta ahaa kii ugu ballaarnaa muddooyinkii u dambeeyay ka qabsama gudaha magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn. kulankaasi waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin maamulka Khaatume State of Somalia oo ugu horeeyay wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Khaatume State of Somalia Yaasiin Axmed Sulub, wasiir ku-xigeenka kheyraadka dabiiciga ee maamulka Khaatume State of Somalia, gudoomiyaha gobolka ee maamulka Khaatume State of Somalia Cabdiraxmaan Maxamed Axmed iyo xubno kale oo ka mid ah maamulka Khaatume. waxaa sidoo kale kulankaasi ka hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada oo iyaguna muujiyay sida ay u taageersan yihiin maamulka Khaatume isla markaana aanay raalli uga ahayn in faragelin lagu sameeyo xubnaha baarlamaanka ee maamulka Khaatume ku matali doona dowladda dhexe ee Soomaaliya. ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Cayn ee maamulka Khaatume State of Somalia Cabdiraxmaan Maxamed Axmed. bismillaahi raxmaani raxiim. dhammaan waxaan salaamayaa bulshada isugu timid munaasabada sharafta leh ee qaaliga ah ee isugu jirta culimada, cuqaasha, codkarka, hooyooyinka, dhalinyarada, madaxda Khaatume State of Somalia. dhammaan waan salaamayaa, waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. salaan ka bacdi ilaahay baa mahad leh isugu keenay halkan innagoo ka hadlayna oo ku muujinayna haddii eebba kuu roon yahay aragtideenna iyo rabitaankeenna. waxaanu leenahay marka ugu horraysa ha noolaato Khaatume State of Somalia. waxaynu leenahay wax allaale wixii carqalad ku ah ee neceb ee hortaagan ee mushkilad ku ah ma dhaceen. waxaynu garab taagannahay dowladda federaalka ee Soomaaliya ee taageersan maamul goboleedka Khaatume State of Somalia. waynu taageersannahay. agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Khaatume State of Somalia Maxamuud Sheekh Cumar Xasan ayaa isaguna halkaasi ka hadlay. guud ahaanba shirkii lagu qabtay magaalada Nairobi ee lagaga wada hadlayay arrimaha dhulbahante oo kaliya aan cid kale saameeyay. dhammaan waan cambaaraynaa. waxaan cambaaraynaa go'aamadii ay ka soo baxeen ee tuugada ahaa ee gaarka u ahaa dhulbahante oo Soomaaliya lagaga saaray. wasiir ku-xigeenka wasaaradda kheyraadka dabiiciga ah ee maamulka Khaatume State of Somalia Xasan Axmed Cali ayaa isaguna halkaasi ka hadlay. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Khaatume State of Somalia Yaasiin Axmed Sulub oo labaduba ku dheeraada sida ay muhiim u tahay in maamulka Khaatume faraha looga qaado xubnaha baarlamaanka u matalaya dowladda dhexe ee Soomaaliya. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada. si kastaba ha ahaatee banaanbaxan oo ahaa mid aad u ballaaranaya waxa uu ku soo beegmay xilli golaha dhaqanka ee maamulka Khaatume ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo maamulka Khaatumeba ay ka gacan taageen ka gadaal markii la sheegay in xubnaha baarlamaanka qaarkood ay soo magacaabayeen xubno ka tirsan maamulka Puntland, taasi oo maamulka Khaatume ay u aragto arrin aan macquul ahayn isla markaasina aan khusaynin habkii lagu soo xulayay baarlamaanka dowladda federaalka.